gaadiid dagaal oo ay leeyihiin ciidamada dawladda federaalka ee Soomaaliya ayaa xalay gaadhay degmada Beled Xaawe ee gobolka Gado oo dhawaan ay qabsadeen ciidanka federaalka ee Soomaaliya. Wareedyo lagu kalsoon yahay ayaa West News u sheegay in gaadiidka halkaas gaadhay ay yihiin kuwo shalay ay diyaaradu ka dejisay garoonka Doolow kadib markii laga qaaday magaalada Muqdisho. xogtan ayaa waxay West News la wadaagay qaar ka mid ah maamulka degmada sidoo kale Daahir Aadan Maxamuud oo ka mid ahaa dadkii deegaanka ahaa ayaa sheegay inuu arkay gaadiidkan. qiyaastii ilaa 20 tikniko iyo 3 gaari oo kale oo kuwa raaxada ah ayaan aragnay waxaana jiray inay leeyihiin baabuurta kale ee quflan ee ku soo waajahan magaalada Beled Xaawe ayuu yiri Daahir Aadan. sida uu sheegay Daahir Aadan dadka ku nool Beled Xaawe ayaa xalay isku soo baxay si ay ugu dabaaldegaan isla markaasina ay u soo dhaweeyaan ciidamada dawladda iyo gaadiidkooda la keenay magaalada. ciidamada dawladda Soomaaliya ayaa fiidnimadii habeenkii Talaadada waxay si nabadgelyo leh kula wareegeen gacan ku hayntii degmada Beled Xaawe kadib markii ay isku soo baxeen ciidankii taabacsanaa maamulka Jubbaland. wararkii ugu dambeeyay ayaa sheegay in ciidamada Jubbaland ee taageeray wasiirka amniga Jubbaland Cabdirashiid Xasan Cabdi Nuur Janan ay imka ku sugan yihiin xuduud ayna doonayaan inay la dagaalamaan ciidamada dawladda. waa Suuban Maxamed Jaamac Bootaan warbaahinta madaxa bannaan ee West News Hargeysa.